عبد الله سلطان وكان موسى وينوفا فاهية عبد الله سلطان محمد oo loo yaqaano Timcadde waxa uu ku dhashay tuulada la yiraahdo Qoolka Jifaad oo dhinaca galbeed ka xigta kala baydhka markii ay taariikhdu ahayd 1920 sida ay ii sheegtay Barni Jimcaale oo ahayd afadii ugu horeysay ee uu Timcadde guursado. Cabdillaahi oo ahaa madi curad ahi waxa uu ku koray kuna barbaaray tuulada Galoley oo u dhaxaysa Gabiley iyo Arabsiyo. qoyska uu ka dhashay Timcadde waxa ay ku lahaayeen Galoley beero iyo xoolo ay ku dhaqan jireen deegaankaasi. Cabdillaahi Galoley ayuu yaraantiisii ka galay malcaamad quraanka taas oo noqotay tababarkiisii ugu horeeyay ee diinta islaamka iyo tacliinta guudba. sida ay noo sheegtay Barni Jimcaale Timcadde waxa uu ahaa nin midabkiisu yahay maariin dhererkiisuna ku dhow yahay ilaa 5 fuud iyo badh. wuxuu xidhan jiray labiskii waqtiga caanka ahaa ee macawista, umaamada, koofiyada, shaarka iyo boqoradu qaato. haddaba sida taariikhda lagu hayo Cabdillaahi waxa uu dhalinyarnimadiisii aad u jeclaa oo uu tuman jiray ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka Soomaalidu u leedahay sida dhaantada, baarcadaha, botorka iyo wixii lamida. taasoo Cabdillaahi kula baxay naanaysta ah Timcadde. haddaba goor lagu qiyaaso horaantii 1930 ayaa uu Cabdillaahi u ambabaxay dhinaca wadanka Itoobiya ee aan dariska nahay. gaar ahaan Cabdillaahi waxa uu tagay magaalooyinka Adari iyo Diridhabe. waxa uu halkaas Cabdillaahi ugu ciidamin jiray adeerkii duleed oo maqaaxi goobtaas ku lahaa. waa maqaaxidani goobta ay gabyaanimada Timcadde ka bilaabmi doonto kana taabaqaadi doonto. ilayn waa isla doonasho ilaahe gabadh Oromo ama qotiyad ah ayaa Timcadde calanka dul suratay jiif iyo joogu diiday xag iyo habeen kastana ka dowreemi jirtay. habeenada ka mid ah ayaa Cabdillaahi oo maqaaxidii oo laga rawaxay ka shaqaynaya ayay gabadhii u timid iyadoo iska dhigaysa inay foox doonayso xaqiiqdiisi ah guurdoon. Cabdillaahi oo aan niyad u haynin gabadhani waxa ay arintani ku dhalisay dareen gabay waxaanu halkaa ka mariyay afaraydiisii ugu horeysay asagoo leh fajac waan arkoo malaha waa laygu kaafuraye fooxdoon haddaa tahay tukaan furan ma weydeene maxaa faras magaalaha ku dhigay fiidkii laga hoyday. afaraydaasi kadib sida ay Barni Jimcaale ii tibaaxday gabadhii qotiyada ahayd ee Timcadde jeclaatay aad iyo aad ayay uga xumaatay jawaabta gabayiisa. waxayna istiri bal dhinac kale uga wareeg oo jaad uu ku qaylo uge. Timcadde asaga oo la yaaban gabadhan jooga iyo jiifka u diiday ee imikana qaadka ku sasabaysa ayaa waxa uu tiriyay gabaygan aan ugu magac daray qayb. asaga oo leh aabbahay baqaad iyo ma cunin qodaxan buuleede qorax soo baxduu maali jiray sidigta qayraane qabiilkaanu nahay baa lahaa qalanjo naagoode qowlkay tidhaahdaa ka roontoma qamiisleeye niman baan qabuuraha ku jibin qaayibna ahayne qurux waxay lahaayeen rag baad qarandi moodaaye naagyahay qariibaanahay hay qulquladaynin kuwa qaadka kaa hiibsadaan qiri heshiisaane qotida hayse seegina baraan qadow tagaayaaye